ka xoghaaya ahaan arintaas waxa la ila wadaagay ma jidho waxaan wareejiyayna ma jiraan cid aan xil u dhiibana ilaa ay hadda ma hayo waa in la helaa cid ku timaada sifa sharciya laga wada tashaday la isla og yahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin thumma salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ba'du assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maantay waxaan soo salaamay idaacadda Sooyaal runtii waxaan u mahadcelinayaa raadiyo Sooyaal iyo shaqaalihiisa sida hagarbaxsan iyo sida hufnaanta leh oo ay wararka ugu tabiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sida ay uga qayb qaataan wixii mataqaanaa deegaanka horumarkiisa iyo nabadiisa wixii ku saabsan aad iyo aad baan idin salaamayaa salaan kadib maantay waxaan idinkugu imid inaan ka hadlo arrimo jira oo ka jira deegaanka arrimahaas oo ay ka mid yihiin maamulka iyo habka leeyahay maamul baa la soo magacaabay in arrimahaas ka hadlo marka waxaan arkayay warqad ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka Galmudug waxaan nasiib darro ah madaxweyne ku-xigeenkii oo ah madaxweyne ku-xigeenkii ka soo jeeday deegaanka inuu waxyaabaha qaarkood uu ku degdego ayadoon laga wada tashan ayadoon bulshada wax laga weydiin qaybaheeda kala duwan haday guurti leedahay haday ganacsato leedahay haday culimo leedahay haday cid kasta leedahay ayadoon waxba laga weydiin inuu ku degdego runtii aad iyo aad baan uga xumahay waana wax laga fiican yahay adduunkan wax walba waa tala ku nool tala lagu nool yahay laakiin qof iskiisa asoo inta wax u maraqso wax ku socodsiin kara maanta ma jiro xaaladaha iyo marxadaha lagu jiro intaas kadib waxaan arkay warqado la soo qoray oo leeyahay waxa lagu soo magacaabay gudoomiye ku xoghayn iyo xoghayn anigu waxaan ahay xogayihii dawladda hoose degmada Caabud Waaq wax madaxweynuhu ila wadaagay oo hore ila wadaagay ama dib ila soo wadaagay ma jirin wax la tashi ah oo arintaas uu igala sameeyay maadaama mas'uulka degmada joogay aan ahaa oo mas'uuliyad ahaan uu wax iga weydiiyayna ma jirin wax bulshada aan anigu maamulka u matalay oo odayaal guurti leh oo dhaqan leh oo ganacsato leh oo caqli leh ama dhalinyaro leh oo uu la wadaagayna arintaas ma jirin sidaas darteed waxaan anigu ka soo horjeedaa magacaabista la soo magacaabay aan ku soconin sifaha sharciga ah taas horta waxa weeye waa ka soo horjeedaa saxna ma anigu hadda ana xoghayihii degmada ah sidii shalay aanu ahaan maanta u ahay waxaan haynayaa ilaa aan ka helay sifa sharciga wixii wax kula wareegay kow waxa soo haray midda labaad anigu in maamul la magacaabo maamul la dhiso ma diidani maamul waa soo dhaweynana maamul waa loo baahan yahay degmadu waa u baahan tahay maamul laakiin maamulku u baahan tahay muxuu yahay degmadu waxay u baahan tahay council in degmadan wixii wax u taraya wax nomination waa soo marnay intaasaan joognaa hadda wuxuu yahayna waa soo aragnay waanan ognahay waxa qabadka uu yeelanayana iyo midka uu soo marayna waa ognahay waa kan anagu hayna kuwa hadda la magacaabayna hadii la soo magacaabo hadda la yiraahdo haba la daayay waa tabtiyo kale waxaan la rabaa waxa deegaanka wax ugu yaala oo wax u noqonayo oo horumarka u ah ama nidaamka u ah in deegaanka wax loogu qabtaa ma aha deegaanku asagoo burbursan in la sii burburiyo oo la sii dhibaateeyo sax ma ah in nabadgelyadiisa iyo deganaanshihiisa khalkhal la galiyana sax ma ahan maadaama aysan ahayn wixii wax loo dhan yahay bulshaduna u dhantahay lagana wada tashaday odayaal og yihiin ganacsato og tahay dhalinyaro og tahay aqoonyahan og yahay wixii maadaama wax saas aysan ahayn mideeda kale waxa loo magacaabaya degmada lafteeda waxay leedahay ka fiirsashay leedahay waxa la magacaabayaa ka fiirsashay leeyahay cidda la magacaabaya waa in dad la taskiyay oo la yaqaan dadku waa inuu yahay ma aha in la iska magacaabo dadka la iska magacaabo ma ahan marka waxyaabahaas oo dhan runtii waxaan ku dhaliilayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo nimanka mas'uuliyiinta ah oo xildhibaanada deegaankan ah waxa la rabaa inay ka fakaraan degmada horumarkeeda degmada mataqaanaa waxyaabaha ay wax ku helayso mashaariicda ku helayso sifooyinka ay ku horumarayso waxaas inay ka shaqeeyaan bay ahayd sidaas darteed marka waxa way meeshaas waxa ka dhacday mas'uuliyad darra ka dhacday waxaan leeyahay marka hal laga daayo degmada waxyaabaha khaladaadka oo degmada lagu wado hal laga daayo waxa soo haray xildhibaanadu waxay ka shaqeeyaan hadda caawda ayagu maamulka ka shaqeynaya ma ah laakiin maamulka jooga ka shaqeeya degmada maamulka degmada jooga ka shaqeeya in lagu ixtiraamo xaq u leeyahay ayagu inaysan ahayn maamulka degmada inaysan ahayn waa inay ogaadaan waxa kala jira hadda kuraasta la magacaabay
hadda gudoomiyuhu asagu madaxweyne ku-xigeenka wada hadleen waxba isku ogaayeen waxa isku ogaayeen buu sameeyay laakiin gudoomiyihii kala gudoomiye ku-xigeenkiina wuu xanuunsanaa wuu maqnaa labadaas war marka hadii ninna asagoo uu yiri xilki wareejiyay ninna uu maqnaa waa sax laakiin annaga ka xoghaay ahaan arintaas waxa la ila wadaagay ma jidho waxaan wareejiyayna ma jiraan cid aan xil dhiibana ilaa ay hadda ma hayo waa in la helaa cid ku timaada sifa sharciya laga wada tashaday la isla og yahay